waa meel aan ka fogeyn gurigeeda ayuu si naxariis la'aan ah ugu feeray 2 mar ayuuna gacanta ula tagay waana dariskeeda dhowr mar ayuu Soomaalidana ku xadgudbay ninkan goobta uu falkan uu ka dhacay waa magaalada Ankara haddaba sidee ayay wax u dhaceen waatan hooyo Fawziyo Axmed Sheekh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahey Soomaaliyeed waan salaamay maanta waxa ila fadhiya safiirka ayaa maanta ila joogo iyo walaalahey dhamaan dumarkii wiilashii dhamaantooda way ii soo gurmadeen ma sha Allah nin Turkiya ayaa idilay markuu idilay gabdhi ilmahaygu ceersaday banaanko ila tagay ceejiyo igu qabtay marka saas way arinta marka gurigana wuu igu dilay dhabarka haraantiyo igaga dhuftay saas ayaa dagaalka ka bilowday dagaalka markuu ka bilowdan ilmiyo iga ceertay ayeeyadu ila joogto guriga ayuu ku soo xiray iyo gabar oo ii dhashay oo qalan oo guriga ku soo xiray anigana banaanka ayuu ii baxsaday fiidiyoogana waa aragteen oo malay doona uu nii soo gaaray marka walaalay waxaan ka rabaa in wax leega qabto dhamaantiina oo leeso istaago maxkamad heer maxkamad ana diyaar ayaan u ahay. safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ambassador Jaamac Aydid oo aad uga xumaaday falkan ayaa markii uu arintan uu maqlay waxa uu si degdeg ah uu ku booqday hooyo Fawziyo Axmed Sheekh. safaaradda Soomaaliyeed keyskan ama xaaladan iyada ayaa qaadaysa caaw laga bilaabo annaga ayaa maxkamad la tiigsanana wadooyinka ku haboon ee dacwada loo marayna waa u marana raalli kama nihin qof Soomaali ah oo dalkan joogo sharci ku jooga in sinaba loogu xadgudbo mana lagu xadgudbi karo sidoo kale dadka Soomaaliyeed yeena ku xadgudbin dadka walaaladooda ah ee Turkida ah ee martigeliyay wayna soo gaareen dacwooyin sidoo kale Soomaali laga cabanayo iyagana waxaan ka codsanaynaa Soomaaliduna inay yareeyaan ama joojiyaan xadgudubka waliba dhalinyarada ragga u badan ha yareeyeen xadgudubka ay walaalahoodka martigeliyay iyagana u geysanayaan raalli kama nihin Soomaaligu inuu wax dulmiyo ama wax ku xadgudbo in lagu xadgudbana raalli kama nihin oo ficil baan ka qaadanaa marka maamada iyo Cabdiraxiim walaalkii oo hadda naga maqan oo arday ah iyo nimco xadgudubka loo geystay iyo maamada hablaheedu aad arkayseen mid kamid ah inay la sawirnayd intaba waxaan u mari doonaa wadooyinka diblomaasiga ah ee aanu xaq u leenahay maxkamad baanu ninka la tiigsanana hadii la haydmo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa siday hadeerba u garab istaageen maamada shaarica lagu dhibayay inay sidaas oo kale isu garab taagaan qof kasto oo walaalkood ah oo agtooda lagu dhibaataynayo Soomaalidu gobollo badan bay ka degan tahay dalka Turkiga qofka u dhowba marka ugu horeysa laga rabaa inuu u heeliyo oo dhibka ka celiyo heelkuna waxa weeye hadii walaalka wax dhibaato geysanayna gacanta qabo hadii loo geysanayna u heeli oo dulmiga ka hor istaag. Cabdiraxiim Maxamed Xuseen waa diriska maama Fawziya isagana wiil walaalkiisa ayuu ninkan dhibaato kala kulmay nin Turkiya ayaa maamada sadarkaysan waa dilay jug buu gaarsiiyay waxaan kula kacay qof fiican ayuu kula kacay waliba maamo hooyo ah oo caruur haysata sidoo kale anagana wiil aan walaalahay oo wadanka jooga ayuu si arxandara ah dib u gaarsiiyay hooyadan wadakaysa si arxandara ah oo qof fiican adkeysan kareen dameerkuna aanu ku siineen ayuu ula dhacay waliba jarna ka tooray waxaan la joogay dajaliyadeedii iyo waliba safaardeedii iyo waliba safiirkeygii waan ugu hambalyeynaa sida wanaagsan waxna la qabteen waxaan leenahay barakallahu inuu ilaahay ka jasiyo maamadana ilaahay si fiican oo caafimaad qabtana ilaahay waxaan ugu dhawaanay kaan waxaan rajaynayaa insha Allah in safiirka iyo waliba dalka Turkiga ee walaalahayga inay iyaguna sida waajibka sharciga dastuurka loo mariyaan. safaaradaha Soomaaliya ee adduunka ku yaal waxa waajib ka saaran ilaalinta sharafka iyo sumcadda muwaadinka Soomaaliyeed iyadoo mararka qaar muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan bulshooyinka ay la nool yihiin. Salman Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.